kow iyo toban jir soo jiitay adduunka oo dhan kana ilmaysiiyey markii uu quraanka kariimka ah ku dhex akhriyay xabsi. si aan u gudagalno muuqaalkan like garay si share garay si uu u gaaro saaxiibo badan mahadsanid. wiilkan yar ee xabsiga ku jira ee shafka qaawan waxaa magaciisa lagu sheegaa Naafis Yacquub. waa wiil dhalinyaro ah oo kamid ah dadka Thaiga. wuxuu si dhuumasho ah ku soo galay dalka Malaysia si uu uga shaqaysto halkaasi maadaama uu ka dhashay famil sabool ah. nasiib darro habeenada kamid ah ayuu gaajo la jiifan waayay waxa uuna u soo baxay banaanka si uu u raadsado cunno oo cuno. balse banaanka hore waxa uga hor yimid mid kamid ah booliiska wadanka Malaysia. waxaa la weydiiyay warqadihiisii sharciga ahaa ee uu wadanka ku joogay balse nasiib darro wax uu sheegay ayuu garan waayay. markii dambana xabsiga ayaa la dhigay. jeelka oo aad u kululaa oo hur badan gudihiisa ka jiray ayuu shaarka iska siibay si uu hawo u helo. laakiin wixii xigay ayaa dad badan ka yaabiyay. waxa uu bilaabay inuu akhriyo aayadaha quraanka kariimka ah. codkiisa ayaana buux dhaafiyay qolka jeelka. waxayna maxaabiista kala dareemeen xasilooni halka qaarna ay qiiro la ilmeeyeen. أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك wardiye kamid ahaa kuwa wardiyeynaya ayaa bilaabay inuu ka duubo muuqaal uu akhrinayo aayadaha quraanka kariimka ah oo uu soo galiyay baraha bulshada. isla markiiba waxa si dhaqso ah ku faafay muuqaalkiisa. qof kasta oo Malaysia ku nool waxa uu dalbanayay in la sii daayo wiilkan. xataa wasiir kamid ah dalka ayaa soo booqday durbadiiba waana la sii daayay. qoysas badan ayaa hardan u galay sidii wiilkaas yar ay ku heli lahaayeen. kuwa qaar ayaana lacag bixiyay. hadda wuxuu safar quraan akhris ah uga baxay dalkaasi isaga oo matalaya isla dalka Malaysia. wadamo badan ayaa dalbaday wiilkan yar oo codkiisa soo jiidashada leh ka helay. hadda waxa uu maamulayaa madrasa ku taala Cambodia. bal u fiirso sida Allah uu u bedelo kuwa isaga tala saarta umuurahooda. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم